وأنا wanaagsan dadka nadaawanayo meel kasta oo joogtaan daawadayaal barnaamijkeenan maanta waxaanu kaga hadli doonaa nidaamka lagu soo galo dalkan Mareykanka ee dhawaanta la soo saaray ee dadka Soomaaliyeed loogu baaqay in ay suurtagal tahay in ay ku yimaadaan wadankan Mareykanka waana nidaamka loo yaqaano Group 5 dad hore oo Soomaaliyeed ayaa hore ugu yimid nidaamyo kala duwan oo ay kamid tahay iyadoo ay sponsor ama damaanad ay u direen eheladoodu kuwaasi oo qaxooti ahaan lagu soo qaadi jiray dadka qaar ayaa iyaguna waxay dalkan Mareykanka ku yimaadaan nidaamka kale ee la yiraahdo lottery ama DV lottery oo sanadkiiba mar dadka la siiyo fiisiyada ay ku soo galaan dalkan Mareykanka haddaba nidaamkan Group 5 la yiraahdo oo dadka Soomaalida ku cusub inta badan ka jiri jiray wadanka Canada ayaa dad badan oo Soomaaliyeed oo qaarkood ay gudaha Soomaaliya jooga aanay rumaysnayn in nidaamkaasi dad ku yimid dalkan Mareykanka in ay jiraan maanta ayaa daawadayaal waxaan hadaba idin haynaa qaar kamid ah dadkii ku soo galay nidaamkaasi garabkayga bidix waxa fadhiya Maxamed Abdiwali Jaamac oo Group 5 ku yimid oo ah qofkii ugu horeeyay oo aan waraysi ka qaado oo Group 5 dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolkan Minnesota ku soo galay iyadoo dad kalena ay yimaadeen gobolo kala duwan oo isla dalkan Mareykanka ka tirsan marka ugu horeysa Maxamed Abdiwali Jaamac ku soo dhaw horta marka hore Soomaali aan raahdo Mareykanka guud ahaan iyo gobolkan Minnesota labadaba waa dhaw waayahay naanisteedu waan kar waay igu celi marka la naanistaadi hadda saddex suul jaan dheere cadde saddex suul jaan dheere waa magac saddexankaasi waa naanaysa ha inta waay imisa habeen baad u hoyatay Mareykanka imisa joogto waxaan u hoyday muddo asbuuc ah joogta absolutely gobolkan imika aad joogtida Minnesota waay yaa yimi maadiga kaliya maadiga xaas maadiga ilmo imsa qof ka taadeen waxaan ku nimid afar qof aniga iyo saddex cunug aan dhalay adiga iyo saddex cunug oo dhashay okay xagee ka soo dhafteen waxaan ka soo dhafnay dalka Kenya Nairobi Nairobi baan ka soo dhafnay qaasatan Kakumo waay xirad qaxooti Kakumo joogtay waay nidaamka ku soo dhaftana waa Group 5 absolutely sidee ku ogaatay Group 5 in lagu soo dhaafo oo dabeetana soo dalbatay iyo ku soo diray bal xogaa tafaasiilana si Group 5 ku anagu dadka Soomaaliyeed iska update internetka wax saas la socda Mareykanka markii lagu dhawaaqay dadkii gudihii joogay dadkii halkan joogay waa la wada hadlay marka qolada Mareykan joogta oo familka ah baa arintan ka shaqeysay oo noo soo xareysay nacaawsay marka dad adiga halkan ku jooga ayaa ku soo diray ku xireeyay waay mar rumaysnayd Maxamedow in Group 5 aad dalkan Mareykanka ku iman kartid ma waay xagga marka joogto maxaad haystay Group 5 روايد يعني وحسك رواية أو إن أمريكا قف واحد كمرة 5 سنة 6 سنة 7 سنة أسكت دورية واي يعني وحن كوها من إن كندا عندنا وجروب 5 كحرسنا واي لكن هذا تنع علي أمريكا كوني بيدو واحد مرتي تدكو أي رميسان دونان أوكي يا كو صدري هو يدا يا حورتي أو هالك جوي يا كو حرية مركا شغف لكو حرية واي مركا معاملك ورقها iyo in hawsha lagu dalbado iyo ka shaqeeyay oo xafiisya ku ah Maxamed Ali xafiiska Harsan xafiiska Harsan Maxamed Ali baa noo kala kiciyay ayaa idin kala habeeyay waraqaas way muddo inta la ku qaatay markaa January to September January sanadkan ila September oo muddo kooban ba muddo kooban 8 months inta markaa ka kuma joogtay mise waxaad ka Nairobi markaa u ragtay minihi Nairobi baan ka marnaa wax oo dhan laakiin anigu reeka kumaan baan ka tirsanaa laakiin qofku markii la soo waco waxa la xagee joogtaa haduu dhaho Nairobi joogo Nairobi ku maraya haduu ka kuma joogo ka kuma ku maraya okay markii lagu xireeyay xafiiska aad sheegtay Harsan la yiraahdo ay ku xireeyeen oo hooyada iyo habartaaba ku sheegeen in hawshaas lagu galay ma lagu soo xiriiri jiray safaaradda Mareykanka iyo howlwadeennada Mareykanka ma kula soo xiriiri jiray meesha hawshaadu marayso ku soo ogeysiin jireen tusaale kale markii shaqadu ay Mareykanka soo wareegto waa loo sheegay familku waxa leeyahay shaqadii Mareykanka way ka soo wareegtay xafiiska Harsan way ka soo wareegtay waxay u wareegtay leeyahay Afrika iyo dadkii arinta kiisku u yaalay anaga marka hay'ad wax la soo wacdo
RSC baan soo wacday hay'adaas ku soo wacaysa hebel miyaa ku leedahay marka hay'addu kula hadasho waxay ku leedahay xagee joogtaa waxa leedahay waxa jooga meel hebel waxay ku leedahay kiiska hebel baa kula jira ma kula joogan mise waa ka maqan yihiin waad ila joogan baylada waxay ku leeyahay hebel soo gal interview koobaad baa leedahay anigu hay'adaas aan ka soconaa group 5 ka lagu xareeyay Mareykan baa interview koobaad baan maraysaa ku leeyahay marka saas lagu soo xareeyay interview koobaad kalabaadna saas ku soo wacayaan ilaa aad ka soo dhoofaysid waaye iyaa kula socday marka visa marka qaadatay dad inta leeg baahayd waxaan ahayn ilaa 100 qof diyaaradda ilaa 100 qof baan ahayn meel Nairobi dadka waxa la geeyaa meel gool ah oo dadka lagu soo xareeyaa marka hore baaga lagu checkima marka ilaa 100 qof baan ahayn Ethiopian baan ugu badnaa oo isla sheekada group 5 ku soo baxay group 5 ku socdeen hatta Congolese baan ugu jiray anaga Soomaalida u yarayn afar baabuur baa halkaas baan meesha goolka uga soo baxnay airport kana keenay sidaasaan ariga Mareykanka ku soo galnay imsaad Minnesota ku soo gashay Minnesota waxaan ku soo galnay ilaa 20 qof camal baan ku soconay dadkii kale waxay nooga hareen gobolada kale nooga hareen nin walba gobolkii looga soo diray hawsh absolutely saasad ku timi marka gobolka sideed cisho ka hor ama toddobaad adiga iyo saddex ilmahaagiya sax waaye goormaad rumaysatay inaad Mareykan u dhoofi kartid oo imika ay dhab tahay oo aanay kaftan ahayn oo saan babaxsid ma aaminsanayn waaye markaan wax walba xataa maraynay waxaan dhahaynaa waxaan say u socdaa meel dhaxaa ku burburi doonaan waaye group 5 waaye dadku qaar baa isoo wacay familka oo magaalada nala joogay markaan dhaho group 5 maanta soo maray interview koobaad iyo kii labaad ma aysan isu rumaysanayn waaye xilliga hadda aan joogo dadku markay soo wacay waxay dhahaan Mareykan ma joogtid ba Nairobi dhinac ka joogtaa waaye dad xataa Mareykan jooga family aan ahay baa isoo wacay waxay dhahaan ma joogtid Mareykan ilaa aan lambarkii Mareykan aan qaatay ayaga toos u wacay ma aaminin waaye dadna waxay dhahaan waa ku imaanaynaa marka dadku bahalka ma aaminsana aniga ku soo baxay ma aaminsanayn waaye ilaa tigidkii la siiyay oo fiisihii la siiyay oo marka hadda waad u qaadan lahayd inaad Canada joogtid inaad Mareykan joogtid inaad kala ani wali waan aamin lahaa ilaa aan maartay lambarkii qaatay qof caadi aan noqday marka waa calafku maartay maniga waftaa meeshan joogan inay Mexico tahay iyo moos dadku kale waxa mulay aniga markii isku ay arkaan inaan maartay Minneapolis aan joogno way aaminayaan waay marka dadka muuqaalkan waxa dad badan baa aamin la laakiin marka maanta hadda saa ku hor fadhiyo waxaan mulay inay aamini doonaan marka hadii maanta waraysiga qof kale ka qaadana wax la oranayo Mexico ama Brazil ama baana mu joogaa ninka la oran lahaa dadkii darbiga waay hooyo iyo habaryar goorma iyagu rumaysteen in sheekadoodii ay dhab noqotay group 5 markii qofka wixiisa loo soo dhameeyo baa wax la wacayaa baa hooyo la soo wacayaa waxa leeyahay wiilkii carruurtaada way ku soo socdaan waay adigu gurigii iyo bixii diyaariye markaas ayaguna horta rumaysteen oo tigidka xataa waa loo diray adiri waxa loo diray kale xilligan soo bixinaya meelaha transit kuna waa loo diray markaas ayaguna aamineen aniguna aan aamin okay xafiiskii ku xiray ama shirkadda ku xiray iyadana harsan ma tagta xafiiska wali soo eegta xafiisku waa booqdo dadkii ma saragteen waa saaragna waay waxa tiri ninka la yiraahdo Maxamed Cabdulle aniga maxamed Cabdulle jaac aniga waay xafiiska wixii jooga dhan ba istaagay waay dad xataa meesha waxa fadhiya Soomaali oo markaas ka xareynayay waay dad maartay meesha ayagu diris la oo aaminsanay waxaan Maxamed Cali diris la dadkii oo dhan baa soo baxay marka waxaad noqotay markhaatiga nool waay sambal bay dhahan dadku sida caadiga waay marka markhaatiga nool saaka horta waa aniga على حرارة أكفردية أو ماشي مارتي جروب 5 اللي وحرية تجي مركب مرقاتي ما دتك الصومالي ده دتك الدون كمل والبيت شو عادي قلدا بريكن شوكتنا وهذا دتك وحريني سنة وحلا أنا رميست دتك ودك يشوجو عرق يشوجو وحنا رميسنينا كل ده أنا مرقاتي أفرا واي محمدو إمسال ناوليس وتسويس إن مرة مريكن تبادل لحية تمسنا بكي فدي أنسوي إن مرة هل كان تمسنا مركب سبونسرشيب كي الحين واد كوجول يسوي دونالد ترامب ويسوون تشوشي إلى تضبط وطن مركب عقبض بدو مقصامري ها ترامب أنا صامري أتنا ترامب مركب نجته كورونا فيروس أنا صامري واي عقبض بدو بالله لحية تباد كترت لحية تمسنا ما حكى كترنا كاكو مقرن سعيد كلا سيدا ذا كوسا بحدي جروب 5
ها dad baa ila socday reer Kakuma ah waay baa ila socday oo inaan sugeyn laakiin Nairobi aad ku aragtay ها dad xataa hadda reer Kakuma dad badan waxa jira hadda aniga isku maran interviewga marno idaba socda oo kaararkii qaxootiga laga xareeyay farihii laga qaaday oo aniga idaba jooga jira oo aan rajeynayo xataa dhadhaab dadka jooga xagareer iyo ifay dhaga xalaalkana ka salaamaya iyo reer Nairobi dad jooga oo dad badan waxa jirta aan maaragtay aan isla soconayo aswici jirnay marka dadku WhatsApp iyo sameystaan halkaas iska caawiyaan oo maaragtay baa laga wada xiriiraa marka dadkaasu waa iska warqabn falaaygaygii wax walba amraynay marka dadkii xataa aan qolalkooda jiray marka xagga tagaan soo salaamay waa aamin waayeen marka aaminaad darradu meel walba ka jirtaa Afrikana waa ka jirtaa dadka joogay halkaana waa ka jirtaa adoo ay ku suurtagal wada 16 sano inaad ku timaadid qaxootiga la soo qaadiyay inaad ku timaadid dad ehelkiis ay sponsoraan ayaa waxa ku suurtagashay group 5 oo aad u liidisay salahayd mala war riwaayad in isaga aad ku timid Mareykan way maxamed riyadii Mareykan hadii markaad eegtid way rumoodayso ma sax Mareykan hadda sida aragtaa marka soo gashay inkastoo 8 maalmood joogtay bal 8 faala yar adiga iyo dadka in dhageysanay qaxootiga ka kuma joogay ama Nairobi joogay ama saaxiibadeen ba maxaad oran lahayd waa meel soo ag horta Mareykanku anigu sidaan u qabay soo hadiyaa isma laha way waxaas dhahay wax walba waa bedelayeen way waxaas dhahay marka irta aad soo gashid waxaan noqon doontaa adii ciyaalkaaga dadka ugu fooshuxun way oo waxaas dhahay denin Afrika ka yimid oo waxa baa tahay waas dhahay way marka meesha imid dad ka falxmood dad ayagu u falxun oo kabaha xataa qabaan ku seexda way oo daalan oo soo ordiyaan u imid way marka dadka halkaan jooga waa dad dhiban way oo carruurtooda la dhiman oo maartay shaqadii la dhiman oo haddana ayagoo shaqeynaya guryahooda kirada noloshooda ku nool ba haddana Afrika caawinaya annaga xagga markaan joognay waxaan aaminsanahay ninka inuu xataa lacagta qaar barkan yahay qaar lagu ku riixayo way marka dadku halkaan ugu nimid dad daalan oo rafaaday baan u nimid baan horta halkaan ugu nimid okay adiga bil kadib imka bishan ku jirno October November marka la gaaro dharkan imka sidoo bixinaysa sida caadiga heeriyad qaadanaysa iyo kabaha waaweyn aad sheegaysid dadkii aad ka hadlaysaa dad lahayd dad farxan baan u imi ayadu ekaanaysa waxaad ka mid noqonaysaa dadka xawaaladaha maalmo tagi doona Mareykanka wuxuu leeyahay dhaqan iyo dabeecad dadka Soomaalida soo gala oo ah 5 sano u horeysa qofka si gooni u eegay 5 dambana wuxuu ekaanayaa si kale marka imka horta kuwii kabaha waaweyn waad aragtay laakiin kuwa kale oo Mareykan u eeg ayaa ku dhiman wali صح iyana wad arki doontaa وميلاد كل ولا كريسين كشقيسين كريسين دبكي أفريقيا يقهركي كشرنا أنا كشر عن كسي كلمة محل أورنا هيدا أصحاب تلات كلمات من كاكومو أما نيروبي أما أفريقيا أما الصوماليا مش دون تعلقته محل هكذا نقصد شيء لها محمد عمر كاري dadka halka ugu soo jeedin lahaa waliba dadka Afrikana waxa siin lahaa talo dadka halka joogana talaan siin lahaa waa isku daraya labadooda dadka halkan jooga Mareykan waxaan leeyahay dadka uga faa'iideeyay opportunity-gan dadka uga faa'iideeya 7 bilood 8 bilood baa lagu imaanayaa waxa aad u sahlan January waa la xareeyay September waa soo galay wadanka marka waqti aad u yar weeyo marka dad badan oo Mareykan jooga ma aaminsana marka dadka waxay ku hadlaysaa dadka Mareykanka jooga waxa la eheladiina iyo qaraabadiina u dira group 5 kan group 5 u dira oo arinta rumeeya dadkiina u faa'iideeyay taas horta qodobka qolada Mareykan wala hadlaya inay aniga aaminaan oo cali xaraare aaminaan oo muuqaalkan aaminaan baa rabaa waxa soo haray dadka wadankii jooga ayagana waxa leeyahay dadkiina wacdo arintan ka faa'iideysta oo maaragtay opportunity-gan ka faa'iideysta qofku waxa laga yaabaa halkan jooga inuu markii qofku wadankii jooga uu soo waco inuu arinta rumaysto marka galaangalku wadankana waa ku xiran yahay halkana waa ku xiran yahay marka qof walbo laxankaaga garaaco baan leeyahay dadka wax loo qabto leeyahay marka dadka wax loo qabto opportunity-ga looga faa'iideeyo dadku qaxootiga waa ku dhiban yihiin Kenya waa ku dhiban yihiin Ethiopia waa ku dhiban yihiin meel walba maartay Djibouti waa ku dhiban yihiin South Africa Zambia Egypt dadku meel badan bay joogaan Mozambique xataa qaar baa jooga oo wada xiriir jirin marka dad walba meel walba dadku daadsan yihiin kaarar qaxooti haysan qofka hadduu kaar qaxooti haysto
10 sano 15 sano 20 sano 25 sano qof xarkaysa ka raaysta oo maaragtay qaxootigiina wax ka maray lana qaadi waayay oo hay'adda qaadi waayay baabuuxa marka qof maaragtay ehelkaaga hadaa caawisay halkan opportunity ciyaalkiisana waxay u baranayaan asagiina maaragtay maxamed maxaad ka aaminsantay group 5 hadda maxaad oran lahayd marka dadka u sharaxay group 5 waxaan ka aaminsanahay waa fursad ilaahayna siiyay oo hadda soo korortay Mareykanka siyaabo badan baa ugu imaanaya darbiga laga soo boodaya caqabado badan baa qofka maaragtay la kulmaya marka group 5 waxaan leeyahay wax allaalay wixii group Mareykan lagu imaajinay tala bedelo group 5 loo wareegaan oran lahaa because sanadka yar ba ku imaanaysa efa ma dhicin intaan ku yimid anu qof ku yimid ma jirto markii ugu horeysay efa waaye sideedii maalmood asxaabtaada iyo qaraabadaada iyo dadkii ma sarata qaar waa marka hooyay habaree laga tago dadkii kala ma sarata ama ma wada hadashay qaar waa wada hadlay qaarna way balansan yihiin qaarna way yimaadeen waaye waa timi muddo Afrika joogtay waxaad ku jirtay sponsor dalbatay waxa aakhirkii aad timid Minnesota maxaad leedahay qorshaha xagee ka bilaabaysaa qorshaha waxaan ka bilaabayaa inaan maarta shaqaysto oo maarta dadka iyo dalka waa anfaco oo maarta ciyaalka oo shaqaysto chance-kan wadankan waxa la yaalaan of opportunity opportunity kaas qayb ka qaadanaya insha Allah intii lagu soo diri jiray maslaha dibadda ka badan baa rajaynaya hooyo iyo habaryar iyo adeernas ka badan okay anigu markaan Mareykan soo galay fiisa ku soo galay metana gurigaan ku soo degay markaan seexday subaxii meel ugu dhow ayaan shaah doona waa aroortii hoose aan boorka iska furo markaan soo baxay meeshii shaah intaan gaadhin nin madow ay igu yiri quarter isi ibriye quarter watana quarter kuwa dollarka marka 4 meelood loo qaybiyo meel sida shilinka oo eg quarter kiibo ana markaas soo kacay waan gudbo qof dumara ayaa ina weydiisay sigaar xabad sigaarays ana sigaar ma macno halka markay marayso ayaa markaa shakiyay waxaan sir diyaaradii meel khaldan bad kaga degtay Mexico oo Mareykan lafteeda sidaas oo kale aaminsanaa inay wada lacag tahay dadkuna ay wada nool yihiin fiican yihiin cid ba isdawarsanaysa quarter isma lahayn yaxbad sigaarayo marka waxaan sir warnay bal guriga dib u noqo telefoonada dib u dir inaad Mexico ku soo degtay marka kulli waa meel hawlo badan oo wax badan aad la kulmi doontid laakiin wanaageedu uu badan yahay maxamed waxaan ku rajeynayaa insha Allah taala inaad sidii aad ku riyoonaysay ama aad qorshahaagu ahaa insha Allah in Ilaahay kula kulmiyo dadka kale asxaabtaada xaggee kaga timin wax lagu baaqana insha Allah amaan Ilaahay ugu bareena iyagana in Ilaahay muraadkooda ay doonayaan ku soo safraan inuu iyana u fududeeyo dadka Soomaaliyeed kale ee doonaya ina daawanaya inay yimaadaan dalkan Mareykanka iyana sidaas oo kale way idin furan tahay group 5 inaad ku timaadaan group 5 wuxuu isbedeli karayaa oo qura iyadoo Donald Trump uu madaxweyne noqdo laakiin process qadiimka aad ka gaarsiisaan inta aanu xafiiska la wareegin Donald Trump hadii bada uu soo guuleysto waxa suurtagal ah in aad timaadid dalkan Mareykanka waxa kale oo aan halkan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in bishan October labadeedii la furay iyadana lotteriga oo application-ka ama arjiga lotterigaas ay buuxin karayaan xaqna u leeyahay qofku inuu warqad buuxsado oo nasiibkiisa u qaado waxa dawadayaal barnaamijkaasi intaasi ayaan ku koobaynaa ama aan ku soo gabagabeynaa tan iyo kulankan dambe intaan barnaamijkan oo kala dib u kulmi doono inta ka horeysa waa Ali Xaraare oo dhamaantii midka tagay sida ayo nabadgelyo aad iyo aad u mahadsantahay